الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. سؤاشا waxa soo qoray Cabdilkariim burcu ka soo qoray waxa uu leeyahay qofku isagoo baahan oo duruufaysan hadduu yiraahdo anigu dadka waxba weydiisan maayo oo Ilaahay baan tala saaranaya ka war jawaabtu waxa way xaq buu leeyahay sharcigu qofku markuu gaajaysan iyo duruufaysan uu baahan yahay waa u fasaxaya sidii xadiidkii qabiisa uu sheegay oo nabigu la saddex bay su'aashu u banaantay qofka baahan ee muxtaajka ah kamid aha wuxuu ku kaaftoomo su'aasha kaga maarma aan hayn hadduu markaa isagu iska xamilayo duruufta iyo baahida iyo gaajada xaq buu leeyahay inuu dadka wax weydiisto iyo inuu iska daayo oo duruufta adag uu ku noolaado ila kullayba Ilaahay u baarsaaqaya waa ku yar adag tahay una sidoo kale markuu bukana inuu istaaweeyana xaq buu leeyahay inuu iska daayana xaq buu leeyahay sida uu sheegay xadiidkii mutawakkiliinta nabigu laa 7,000 oo ummadan kamida ayaa jannada ku galaya xisaab iyo cadaab la'aan faaduma burcay ka soo qortay waxa ay leedahay ninkaygu 3 jeer buu diinta caayay muxuu noqonayaa xaalka iyagu wuxuu noqonayaa culimada u tagtaan ama garsoorka qaabilsan arrimaha qoyska kadibna labadiinuba hadashaan go'aan halka laga soo saaro ninkan markuu waxaan ku dhawaaqayay horta saddexdani ma jiraan mise ma jiraan inuu waxa laga yaabaa yiraahdo ma jiraanba waxa kala suuragal ah inuu yiraahdo waan isilowsanaa afka iga boobay waxa laga yaabaa cadayga tan badan baa jirtay inuu yiraahdo marka kulli qiimeynta marka go'aan la qaadanayo qadaa buu baahan yahay garsoor xasan cabdi kismaayo ka soo qoray waxa uu leeyahay ruuxayga xaaskaygii baa waxaan ku yiri hadaad waxa samayso waad furanta waanay samaysa ma furmaysa ha way furmaysa sida jumhuur ulama qabaan wa talaaq muallaq bishart baa la ilaa الحلف في الطلاق ولا تحقلنيسا waxa ka muhiimsan ku oranaya waa talaaq bishart shardi buu ku xiray furiinka shardigiina waa la helay way furantay hal dalqo wuxuu raaciyay waan soo ceshaday way ansixi markaa hadaad si sax ah u soo ceshatay oo aad tidhaxaaskayga heblaayo guurkayga horaan ku soo ceshaday inta hal dalqa furtay kadib ase aanay cadad bixin oo saddex dhiigaana helin markaa soo ceshi furiinka hore uu dhacay soo ceshiga ka dambeeyna waa ansaxay insha Allah Maxamed Bashiir wajaalo ka soo qoray waxa uu leeyahay xaaskayga walaalkeed baan leeyahay ayaa wuxuu yiri qasab ku fur ana waan furay walaacaya furiinkaasi masal ma dhacayo taasi waxay u baahan tahay iyaduna sidii tii hore kala weeyaan oo garsoor qiimeyn bay u baahan qasabka aad sheegaysa qasab miyuha mise adigaaba meel aad rabtay roob kugu eri taas runtii la eegaya oo qasabku de wax walba qasab lama yiraahdo waxa laga yaabaa adigu waxaad qasab u haysatay inaan sharcigu qasab ka dhigin oo de qof hadalada kugu yiri iyo qof hub ku qaatay uu kala duwan haduu toori ku qaatay ama rasaaska la ka hortaagay waa qasab laakiin haduu uu shaku yara lulu ku dheenan tayada hadaad furo wada waxa saa kugu dhacay iska tagay de qasab lama yiraahdo marka waa qiimeyn caalimka u gee shariicada aqoonta u leh si lagugu qiimeeyo inuu qasab yahay in kale saacada hargeysa ka soo qortay waxay leedahay waxaan iska daawadaa musalsaladan hindiga ana filmadan hindiga musalsalada baan daawadaa ma saxba ma saxma waa qalad waxa iskaga badan qaawanaan oo rag qaawan dumar qaawan oo cawra la daawanaya cawraduna markan ay live ka tahay iyo markay sawirka tahay waa isku mid oran maysid deemka waa sawir waa cawro sida markii live ka kaaga xaraamahay umbeeyma kala kaaga xaraamta waxa kale ku jira dhaqamo shisheeye oo kala duduwan waxa kale ku jira waqti lumis waqtigaagiina waad ku luminaysaa waxyaabahaas oo dhan marka la isku geeyo daawashadoodu ma banaana waa inaynu iska dayno waqtigeenu wuu ka qaalisan yahay
mid bilaa macno lagu lumiyo. latusaluuna yowmaidin can innaciim, nicmooyinka aakhire layna weydiin doonana wakhtigu waa ka mid. walwaqtu huwa alxayaa, wakhtiguna waaba noloshi. awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum nadiir faduuquu famaa lidaalimiina min nasiir. aayaddaas waxay ka waramaysaa ahlunaarkii oo ilaahay ula hadlaya markay cawdeena calaalcaleen uu leeyahy sababtaan wakhtiidii sii a kuwaana qaadataan. allah inagu anfaco. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.